muuqaalkan ila fiirsada dib baan ka falaqeyn doonaa. Trained Al Qaeda Yes. to fight the Russians. We trained Saddam's forces to Yeah. fight the Iranians. Correct. After we helped overthrow their government, and then we had to create Jaish al-Mahdi, or the Mahdi army under Muqtada al-Sadr's dad, to fight back against Saddam Hussein. And then we invaded Iraq, and then we created this organization called the Sons of Iraq to fight Jaish al-Mahdi, Cajiib. and the Sons of Iraq turned into ISIS. I did not know that. And then we Okay. funded ISIS. Yeah, I was like, my unit was one of the first ones to train these assholes in 2007. ninkan wuxuu leeyahay ISIS alqaacida annagaa sameynay. ururadan waxaa loo sameeyey si wadan lagu burburiyo siduu sheegaya ninkan. wadamada Ciraaq oo kaleeto iyo Syria oo kaleeto markii la burburinayo ururo waxaa la sameeyey si wadanka loo burburiyo. Soomaaliyana dee muuqaal kale ku sheegan in al-shabaab ay lacag siinayeen. marka ururadan waxaa loo sameeyaa in wadan lagu burburiyo, in wadan lagu baabi'iyo. sidoo kalena urur ay sameeyeen oo yani ku dagaaltamaya in kitaabka quraanka ay difaacayaan ama jihaad iyo waxaan inay sheegaan ay dagaaltamaan. waxyaalahan ayagaa sameeyey saas oo ay tahay diinta muslimku yani inay xumeeyaan ay rabaan, inay magaca ka hadlayaan diinta islaamku. midda kale waxyaalaha badanaa Fox News iyo CNN laga fiirsado waxaa waaye Islamic jihadism, Islamic terrorism iyo waxaan wixii ayaga ay sameeyeen bay waxay rabaan magaca islaamku inay ku qaribaan. marka muuqaalkan waa muuqaal aad u yaab badan. marka intaas ma kusoo kooba billahi tawfiiq.